masalada ku saabsan wax diyaarinta hal mas'alo ma idin sheegay wax waa akademika waa barateen sida wax loo diyaariyo iyo sida wax loo baxfiyo iyo adab al-bahth waa la idin dhigay laakiin midun baan idin sheegaya istikhfaaf uquul الناس walgaayay kugu dhicin bini aadamku inaan waxba garanayn hamoodi tamaneedu waa maxay soo diyaar garow dad rabteen in bini aadam wax sheegto uquushooda ixtiraam wax walba dadka way ku jiraan qaar ka aqoon badan baa ku jira qaar ka waayelsan baa ku jira qaar ka tajribo badan baa ku jira marka meeshun baan buuxiyay hays oranay dadku waxay ka wahsadaan rag badan oo cilmi badan ma jira laakiin waxay ka wahsadaan in waqti ku bixiyo hal arka daris waqti aanu jeedinay sanawaad inaanu qoraynay waxa akhriskaagu ha bato haddaad rabto inaad wax sheegto waxa ka horeeya in adigu aad dhaansantay wax akhriskaagu inuu bato wax akhriskaagu ha batee maskaxdaadu intay ku haynaysaa xaggana waad ka akhriyaysaa xaggana way ka sii daynaysaa idan dabarkaaguna ha bato qalinkaaga iyo waraaqdaada iyo buuggaaga iyo kombiyuutarkaagu ha kula socdaa buug kastoo aad akhrido waxbaad ka faa'iidaysaa idaacaddaa markaad dhegaysataa baad wax ka faa'iidaysaa laakiin haddaad waxa qorto hadhow wuu ku anfacaya waad isticmaali karaysaa haddaad se tidhaahdo waan fahmay haddaad iminka kitaab soo fadhiisato waad wada dhegaysato waad fahmaysaa laakiin bil kadib haddii lagu weydiiyo waxba ka garan maysid haddaad se idmaanu nadar samayso haddaad dib u akhrido oo eegtid oo baadhid oo dhigtid oo wuu kugu degayaa idan caqli badnidaada iyo faham badnidaada ha tala saaranin ee wax akhriskaaguna ha bato dadkana ha fudaydsanin oo dadkaad rabto inaad wax u sheegto waqtiga ha ka luminina waxaad isku daydaa inaad wax ku kordhin karayso inaad wax ku kordhin karaysaa macnaheedu waxay tahay aqsa maa ladayka min juhdin bixi marka hore waxaad awoodo ee baxfiya ee baadhisa ee madaanta taasi waxay ku baraysaa marka dambena inaad garato wax kastoo aad u baahan tahay madaanta culammadii hore xufaad bay ahaan jirtay culammadii dambe waxay idhaahdaan madaantay yaqaaneen haddaad garanayso mas'aladu markay timaado halka aad ka baadhayso wallaahi fatxiga waa ku qorayd oo fii baabi kada buu kaga warramay minhaajkuna baabkaasuu kaga warramay kaa waa fududay markiiba waad soo helaysaa qofka madaanta yaqaanaa waa shubhu xaafid waxaad garanaysaa mas'alo kastoo kuu timaada halkaad ku raajici walidaalika bay culammadu waxay dhahaan markaad wax akhrinayso laba midun baa la sameeyaa kitaab markaad akhrinayso ama jaldigiisaa lagu tajriidiyaa kitaabka jaldigiisa waxaa lagu qoraa masaa'ilkii kitaabkao dhan uma wada baahanid kitaabkaad kastoo aad akhridaa waxa laga yaabaa macluumaad badan aad garanaysa inay ku jiraan laakiin waxaa kaaga soo horbaxaya wax ama kugu cusub ama taxqiiqa ama kuu faa'iideeyey waxaasi waxaad u baahan tahay kitaabka jaldigiisa lagu qoraa bejka intaas mawduuca intaasuu sheekhu kaga warramaya bejka intaa mawduuca intaasuu kaga warramaya marka mar kastoo aad kitaabkaa jaldigiisa akhrido waxaad garanaysaa masaa'ilka adiga ku khuseeyo dhambe waxay tahay amase kitaab ulfawaa'id agtaada ha yaallo sido kitaab ulfawaa'idkaaga sido mas'alo kugu cusub ama fifaada cusub markaad heshaba meel gaaro aad ku qorto ay ka gasha ha jirto idan general knowledge-ka waxay idhahdaan almacluumaat alcaama baa badanaysaa wax sheegu wuxuu ka fiican yahay qofba qofku macluumaadkiisa caamkii ka badan yahay marka macluumaadkaaga caamkii bato في كل المواضيع تصور baad ka helaysaa erayga quraan dilay marka waxa weeyaan istikhfaaf uquul الناس idinku dhicin marka rabtaan inaad wax sheegtaan 40 haddaad dhigayso ka soo diyaar garow wallahu a'lam